يا مان سمول ميلو جوجو هي دغيستو هاونا مقلو انت اعلامينaya bishii sideedaad oo taariikh laba waxaan rabaa oo sanadkana uu yahay 2026 inuu nin walba geedka sagaalmiita ولا حاجة لك الوحيد والآخر إلا قضيت يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله وسلم محمد دعاء دقنا دعاء الله ما أقبله إن الله سماه شكر إسكاله إن هذا البدن لو ما إيمانين أنت واسمه وضل وحنو إيماني إن قضياش اللي سقوك هناي أما هدف كيلو جيدو وجاز جولد يعني في فهندنا إن شاء الله بإذن الله الكريم odayaashana way dhageysan doonaan nidaamkii lagu socdo iyo wixii meeshan la isku keenay kuwaas gowlad ayaa noo warrami doona insha Allah bidillah alkareem anagana dhageyso waan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalaam ala rasulillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan inta meeshan isku imaatay odayaasha sharafta leh suldaanka sagalayaashiisa ku hadda la joogan diyaar dhamaantiina waa idin salaamaya aad iyo aad baad mahadsantiin shirkan suldaankan loo yeeray waan soo ajiibnay aniga gaarsan ka imaaday wixii naga maqan cuudaar mu ku maqan yahay waa salil oo kale dad xanuunsan buu oo India loo qaaday buu sagootinaya kulay asna wuu idin soo salaamay inta kadib muhiimka maanta halkan iskugu imaanay suldaanka horta noo sheegi doona suldaanka dilaacin doona wax meeshan iskugu imaaday annaga markaan asaga ku kabanahay waxaan leenahay horta midnimo samawada in laga hadlo samawada inuu maanta midoobo oo mid noqdo oo walaal noqdo oo waxyaalaha maanta la isku marinayo media la daayo aan talka horta ka codsanayna midda koowaad geedkan waa geedkii samawada samawada oo dhan baa laga taliyaa samawada baa laga hagaa midnimo samawadalna waxaan rabnaa inay ka soo baxdo oo maqneed maxaa ka maqan samawada haddii siyaasad la isku hayo ama dad kale isku hayno waxayna in hoos loo dhigo wax kasta oo samawada ku saabsan aanan maarta media laga siidayn bariyan waxaan maqlaynaa madaxda hata iscaynayso taasna waxaan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay tolka wax gaaray ama carab gaarina waan ka raali gelinaynaa anagoo meesha geedka suldaanka joogo intaas ayaan leeyahay muhiimka la iskugu imaaday waxaan soo dhaweynayaa ogaas walaalkay malo kow iyo laba inuu dhaho kabacdi aan suldaanka soo dhaweeyo marka hadafkan iskugu imaanay uu noo jeediyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin tolka midnimaha lagu wado wadajir ha lagu maamulo waqti siyaasadaan ku jirnaa xagashada iyo hadalka xanaftana hala daayo barakaatu samawdal hadal badan ma sii jiro sida uu gaas guuleed noo sheegay suldaanku baa wixii jira noo faahin doonaa waxyeelo siduu sheegay nabadda samawdal way sii qarimahaysaa Ilaahay noo soo dabaalo madaxdeena iscaayna muwaafaqa Allah siiyo waxaan soo marnaa ogtiin hadda geedka asaga ahay ونو تميم ربا إلهي نو تميم سيو سمودل كسوي ما waxaan ka codsanaynaa meel kasta uu hoydaba nabad iyo xasilooni inuu ku soo dabaalo xaafadaha media isu marmarinayeen annagana sidaas iyadana u jecelnahay wixii ka badan kuma sii daahay waxaan ku soo celinay ilaahay ku ugaas guuleed asoo ma u yeeri doona suldaanka wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhawow talkaada hadafkan iskugu imaanana adaa jeedinaya insha allahu tacaala waa kugu soo dhaweynaya shirka عليكم سمودل waad mahadsantihiin sidaad geedka suldaanka aan idin yeeray aad u soo ayideen ood igu imaateen waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol yaan idinkugu mahadcelin samawdal waad mahadsanta ku soo dhowaaw geedkiinni aad aarateen oo samawdal oo cusuban maanta oo ugaas suldaan maxamed suldaan cabdi aad dhex fariisiisateen aad ku jirtaan maanta
وتكون مهتسنتي وقاسيدا وإلى جوان غارة وحنا عدو دار وشيكتي وسفروا آدي وحكالوا حماركم مقيم ملح وقاسلل وحو شيكتي عدو دار شدي وقاس قولاد إيغا سو شيكي وإيغا سو قدبيي ولا ليال إسلام بانهاي وان ودا دلناي انتو ير oo Soomaaliya meesha ku nool baana sanadan waxaan Soomaaliya ku arki jirin yaan Soomaaliya ku arkay waxa Soomaaliya meel joogtaba kala maarmayno waan wada dhalanay waxaan rabaa waxa asaga inuu Soomaaliya maanta uu ka baxo aan jeclaa insha Allah shaqana waan bilaabaynaa waxaan ku bilaabaynaa Soomaaliya sidaas ku keen lahayd oo walaal oga dhigi lahayd oo mid u ahaan lahaa dadka miidiyaha isku caynay oo madaxdaanaga ah ama Soomaaliya ha ahaado ama ogaadeen ha ahaado ama talamuga ha ahaado hataa waxaan ka baryaynaa in waxaas la daayo doorasho way tagi waa tani wayna dhaafi waxa ka weyn dhaqankii aan wada dhalanay oo u wada joogno oo asaga dhamaanayni asinaan ka gaabsano aad uga baryo tolka meel uu joogaba meeshan hadda iskugumaanan imaanin xaaje kale waa arrin gaaban waxba hadalkii ila sii tegin arrintaas maxay tahay geed baad aragteen beedka waxaan rabaa taariikh 2 bisha 8 2026 inuu nin walba geedka sagaalihiisa u keento 10 beelood oo Soomaaliya oo laga xigin nin walba inuu sagaala keento geedkan sida caadada ah bisha 8 waan ku celcelin taariikh 2 10 qoys oo ka kooban Soomaaliya qoysabel imaanay ma dhahay qoysabel ma imaanay 10 ka kooban Soomaaliya inuu geedkan nin walba keento sagaalihiis taariikh 2 bishii 8 aan cilaaminahay anoo suldaankii ah suldaan maxamed suldaan cabdi ah oo suldaanka guud oo Soomaaliya ah aan maanta idin cilaaminahay oo geedkana u joogno Soomaaliya uu ku dhan yahay sagaaleyowgana ay joogaan xoogooda nuskooda ay joogaan wixii ka maqan in la soo eebiyo yaan jecla taariikh 2 bishii 8 Soomaaliya meela joogto bay dhageyso inaad sagaaleyowgi soo eebiso qoys walba keento yaan rabaa maanta arrinta gogoshan maanta geedkan iskugu yeeray Soomaaliya 7 dab midaan u cilaamin rabaan ugu yeeray oo ugu weyn waa midaas sidaas ogaado Soomaaliya wixii kale waan wax noo dambeeyo iyo tala haya cala salaad iyo maxaa la dhahay waqtigeeda ay leedahay marka hadalkayga ma sii badinaayay inta suldaanka uu maasan yahay hadafkan iskugu imaanayna uu noo jeediyey suldaanka wuxuu dhahay taariikh 2 bisha 8 2026 cid walba oo Soomaaliya ka mid ah oo 10 qoys oo Soomaaliya ha keensadaan sagaalayaashooda gaaris way geedka suldaankana geedkana gaaris ayaa laga hagaajiyay taariikh 2 xaflad baa jirta xafladaas la keeno suldaamada suldaan soo saasma intaas geedkina waxaa laga dhigay magaalada gaaris suldaanka xagga loo hagaajiyay cid walba oo sagaala xagga la keenaya taariikh 2 taariikh 1 suldaanka inta laga qaadi odayaasha waan idin siinayna hadalka suldaanka waxaa kale uu dhahay maanta laga bilaabo waxaan rabnaa Soomaaliya hadalada media in la joojiyo soo saasma in nabad la isku soo dabaalo wali waxaan baa qudiraynaa walaalaheena talmuga wixii hadal xanaf la ka gaaray beesha Soomaaliya inay raalli ahaadaan annaga hebel iyo hebel ma dhahayno wax allaale wixii la qoonsaday annaga geedkan maanta uu cusub yahay sabab jirta awgeed baa loo sameeyay Soomaaliyana wuu isku raacay sagaalayaashana maanta u codsaday suldaanka sida la ileed ama talamuga geedka talamuga khaasatan inay raalli ahaadaan waxyaalaha dharaarhooda hadalladeena naga dhadhaceen madax kuweena wiilal kuweena ka dhaceen taasna geedkaas aan ka raali gelinaa baaqna u dirayna dad walaal baan nahay
ehel baan nahay waan isla shaqaynaynaa waan idin imaanaynaa waan inoo imaanaysaan waad noo baahantihiin waan idin baahannahay marka aad iyo aad baad mahadsantihiin odayaashaan idin siinayna hadalkana in la daayo yuu ku baaqay waa suldaanka guud ee beesha Samwadal ee muttafaq lagu yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odayaasha